maamulka Manchester United oo go'aan ka gaaray mustaqbalka Erik ten Hag kadib guuldaradii xumeed ee kulankii Brighton xidig u ciyaara Real Madrid oo dhaawac ku seegi doona kulanka Derby Madrid taageerayaasha kubadda cagta oo isku raacay waqtiga shaqada laga ceyrinayo tababarayaasha Manchester United iyo Chelsea wargeyska Sport oo sheegay rikoorka Barcelona ee kulamada furitaanka Champions League iyo kabtanka Arsenal Martin Odegaard oo ku amaanay Aaron Ramsdale qaabkii uga falceliyay in keed loo dhigay David Raya kulankii ay ka badiyeen naadiga Everton dhammaan warbixinadan ayaa kugu soo gudbin doona muuqaalkan balse marka hore waxaa ka codsanaya haddii aad igala socoto page-ka kusoo biro follow dhaho sidoo kale ii samee shuruud walba oon ku saaxiibi karno sida like iyo share si muuqaalka uu gaaro meel fog hagaag tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Erik ten Hag ayaa ku jira waqti adag oo u qaadanayo kooxda Manchester United sabab la xiriira qaab ciyaareedka xun oo ay kooxdu ku bilaabatay xilli ciyaareedkan Manchester United ayaa sabtidii hore guuldaro 3-0 ah kala kulantay kooxda Brighton kulan qayb ka ah horyaalka Premier League tani waa guuldaradii saddexaad ee Man United xilli ciyaareedkan kadib markii ay sidoo kale guuldarooyin kala kulantay Tottenham iyo Arsenal sida laga soo xigtay Fabrizio Romano maamulka Manchester United ayaa kalsooni buuxda ku qaba Erik ten Hag Man United ayaa bilaabaysa ololaheeda Champions League habeen dambe iyagoo la ciyaari doona Bayern Munich wareegga gurubyada Manchester United ayaa laba gool oo kaliya gaartay tan iyo bilowga xilli ciyaareedkan waxaana ay ka badiyeen kooxaha Wolves iyo Nottingham Forest dhinaca kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa war xun ka heshay xaaladda qolka lebiska koor kulanka Atletico de Madrid ee horyaalka La Liga Los Blancos ayaa kooxda ay jaarka yihiin ee Atletico ku booqan doonta garoonka Metropolitano kulan qayb ka ah horyaalka La Liga sida laga soo xigtay wargeyska Diario AS xidiga Dani Carvajal ayaa dhaawac muruqa ah ku seegi doona kulanka Atletico de Madrid xidiga Redisman ayaa ka dhaawacmay muruqa lugta midig intii lagu guda jiray tababarkii ugu dambeeyay ee kooxdiisa sida daraadeed Carvajal ayaa garoomada ka maqnaan doona muddo 10 maalin ah sabab la xiriira dhaawaca xidigaasi dhaawaca Carvajal ayaa ahayn mid halis ah laakiin waxa uu seegi doonaa kulanka Axadda oo ay kooxdiisu la ciyaarayso naadiga Atletico de Madrid dhanka kale taageerayaasha kubadda cagta ayaa isku raacay kuna qancay waqtiga shaqada laga ceyrinayo tababarayaasha Manchester United iyo Chelsea ee Erik ten Hag iyo Borussia Pochettino kadib markii ay qaab xun ku bilowdeen xilli ciyaareedka labada kooxoodba waxay ku jiraan xaalad adag iyaga oo fadhiya kaalmaha 13aad iyo 14aad ee horyaalka Premier League Manchester United waxaa laga badiyay 3 ka mid ah 5 kulan oo ay dheeshay halka Chelsea ay kaliya hal mar guuleysatay laba kalena barbara ay gashay natiijooyinkan liita ee bilowga xilli ciyaareedka kadib jamaahiirta kubadda cagta ayaa isku raacay in ten Hag iyo Mauricio Pochettino ay u qalmayaan in laga ciriyo shaqada waxaana ay sidoo kale qiyaaseen waqtiga ay koox walba go'aan ka gaari doonto tababarayaashaasi ciyaarta ku aaminaysa mustaqbalka labada tababare ayaa ka dhici doonta garoonka Old Trafford oo ay Manchester United ku martigelin doonto naadiga Chelsea waxaana isla ciyaartaasi ay ku aamin doontaa tababaraha laga badiyo in laga ciirin doono shaqada sida ay jamaahiirta kubadda cagtu ay saadaaliyeen ciyaartan ayay taageerayaasha kubadda cagta ugu yeereen El Sakiiko oo ah ciyaarta ciirinta tababarayaasha Manchester United ayaa ah kooxda ay xaaladdu ku sii xun tahay oo isku dhaceen tababare Erik ten Hag iyo Jadon Sancho sidoo kalena uu ka maqan yahay Anthony oo eedeymo loo heesto halka la warinayo in ciyaartoyda ay ku dagaalameen qolka lebiska kadib ciyaartii Brighton kooxda Chelsea waxay dhinaceeda rajeynaysaa in ay u soo laabtaan ciyaartoy tiro badan oo dhaawac kaga maqan waxaana uu Mauricio Pochettino cudurdaar uu ka dhiganayaa in aanay wali isla qabsanin saxiyadii cusba dhinaca kale wargeyska Sport ayaa sheegay in Barcelona ay doonayso inay sii wadato rikoorka kulamada furitaanka Champions League Barcelona ayaa nasiib fiican ku leh kulamada furitaanka tartanka Champions League tan ilaa markii ay kooxdu ka qayb gashay tartanka markii ugu horeysay inkastoo ay kooxdu ku dhibaatooday in iska xaadiriso wareegga xiga ee tartanka Champions League wargeyska ayaa sheegaya in tan ilaa 1991 in kooxda Barcelona ay badisay 20 ka mid ah 28 kulan oo ciyaartay halka ay barbara gashay 5 kale sidoo kalena laga badiyay 3 kale kooxda Barcelona ayaa laga badin kulanka ugu horeeya ee tartanka tan ilaa xilli ciyaareedkii 2021-22 iyagoo guuldaro waqtiga kala kulmay naadiga Bayern Munich ugu dambeynna kabtanka Arsenal Martin Odegaard ayaa ku amaanay Aaron Ramsdale qaabkii uga falceliyay in keed lagu kaliyo David Raya kulankii ay ka badiyeen kooxda Everton ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka England ayaa boos joogto ah ka haystay kooxda Arsenal xilli ciyaareedkii hore isagoo ku soo bilowday dhammaan 38 kulan ee horyaalka Premier League waxaana sidoo kale uu ku bilowday 4 kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu kursiga keedka ku jira kulankii Axaddii ay 1-0 kaga badiyeen Everton waxaana bedelkiisa ku soo bilowday saxiixii xagaaga ee David Raya iyadoo tababare Mikel Arteta uu sheegay inuu ku faraxsan inuu isku shaandhayn doono labadiisa goolhaye isla markaana aysan jirin goolhaye koowaad Arteta ayaa lagu dhaleeceeyay go'aankiisa laakiin Odegaard wuxuu aaminsan yahay in Arsenal ay nasiib ku leeyihiin inay haystaan laba goolhaye oo aad u wanaagsan waxaana uu sheegay Ramsdale uu si wanaagsan uga falceliyay go'aanka waxaan u maleynayaa inuu si adag u shaqayn doono sida uu had iyo jeer sameeyo Odegaard ayaa u sheegay saxafiyiinta markii la weydiiyay sida uu Ramsdale uga jawaabi doono inuu waayay booskiisa
waxa uu keedka ku sugnaa isaga oo na taageeraya na farxinaya na caawinaya waa qof aad u wanaagsan wuxuu muujiyay jawaab aad u wanaagsan isagoo taageeraya kooxda waxay ahayd wax fiican oo uu sameeyay waxaana haysanaa 2 gool hayo oo wanaagsan waxaana ka dhaxeeya tartan weyn waxaana ay leeyihiin tayo kala duwan labadaba aad ayay ugu fiican yihiin kubadisida iyo ilaalinta goolka marka waxaanu nasiib u yeelanay inaanu haysano 2 gool hayo oo sidan u fiican waana arki doonaa cidda ciyaarta ayuu hadalkiisa sii raaciyay kabtanka Arsenal ee Martin Odegaard